casharkani waxaan ku soo qaadan doonaa da, de iyo ta, te sida ay u galaan ereyada luqadda Turkiga iyo waxa laga wado. Guriga ayaan joogaa, gaariga ayaan ku jiraa, dabaq ayaan saaranahay, gaariga dhexdiisa. qaab ahaan ereyadaas oo Turki ah ayay xarfahani galayaan, waxaana loo fiirinayaa oo loo tixraacayaa inje harfaleer oo laga wado xarfaha jilicsan, waana e, i, o iyo u, iyo xarfaha kalen oo ah a, u, o, u. waxaan ku hormaraynaa daray ayaan soo qaadanaynaa, waxaan u fiirinaynaa xarafka aan ku darayno inuu yahay xarfaha kalen ama xarfaha inje. ereyga araba waxaa ku wada jiro a, ana waa xarfaha kalen, sida daraadeed waxaa ku daraynaa oo qaybta dambe raacinaynaa da. dhawaaqa soo baxayo waxa uu noqonayaa arabada, waxaana laga wadaa gaariga gudihiisa ama gaariga agtiisa ama gaariga korkiisa. okul ereygaasi waxaa ku wada jiro xarfaha kalen oo ah o iyo u, sida daraadeed waxaan ku daraynaa da. dhawaaqa soo baxayo waxa uu noqonayaa okulda, macnaha waxaa laga wadaa iskuulka gudihiisa. sidoo kale waxaad ku fasiri kartaa iskuulka agtiisa. ereyga hadduu ku jiro ama laga heli karo xarfaha inje waxaan raacinaynaa de. ereyga shishe waxaa laga heli karaa xarfaha inje, sida daraadeed waxaan ku daraynaa de. dhawaaqa soo baxayo waxa uu noqonayaa shishe de, macnaha waxa uu noqonayaa dhalada gudaheeda ama dhalada banaankeeda. shishe waxaa laga wadaa dhalo. ereyga f waxaa laga heli karaa xarfaha inje, qaybta dambe waxaan ku daraynaa de. dhawaaqa waxa uu noqonayaa fd. ereyga macnihiisu waxa uu noqonayaa guriga gudihiisa ama guriga agtiisa ama guriga banaankiisa. ereyga deniis waxaa laga heli karaa xarfaha inje, sida daraadeed waxaan ku daraynaa de. dhawaaqa soo baxayo waxa uu noqonayaa deniis de, macnaha waxa uu noqonayaa badda gudaheeda. waxaan ka gudgalaynaa ereyga gadaal in laga raaciyo ta ama in laga raaciyo gadaal te. sidii hore oo kale waxaa loo eegayaa xarfaha inje iyo xarfaha kalen. shuruud kale ayaa jirto. xuruuftan soo socota haddii laga helo xarafka ayaa lagu dari karaa markaasi ta ama te. xarfaha waxaa lagu dhawaaqaa che, fe, he. xarfahan waxaa lagu dhawaaqaa fistikje shahaab. ereyga mutfak waxaa laga heli karaa xarfaha kalen, sida daraadeed qaybta dambe waxaan ku daraynaa ta. dhawaaqa waxa uu noqonayaa mutfakta, macnaha waxa uu noqonayaa jikada gudaheeda. ereyga dolaab waxaa laga heli karaa xarfaha kalen, sida daraadeed qaybta dambe waxaan raacinaynaa ta. kak waxaa laga heli karaa xarfaha kalen, sidoo kale xarafka u dambeeya waa xarafka ke. ereyga sokak saan hore usoo sheegnaba waxaa laga heli karaa xarfaha kalen, sida daraadeed qaybta dambe waxaan ku daraynaa ta. dhawaaqa waxa uu noqonayaa sokakta, macnaha waa wadada gudaheeda. sidoo kale waxaa laga heli karaa xarfaha shaashada kaaga muuqda midkood, waana xarafka ke. ereyga sinaf waxaa laga heli karaa xarfaha kalen, sida daraadeed waxaan raacinaynaa oo ku daraynaa ta. dhawaaqa soo baxayo waa sinaf ta, waxaana laga wadaa fasalka gudihiisa. ereyga ish waxaa laga heli karaa xarfaha inje, sida daraadeed qaybta dambe waxaan siinaynaa oo ku daraynaa te. dhawaaqa soo baxayo waxa uu noqonayaa ishte, macnaha waa shaqada agteeda ama shaqada gudaheeda. sidoo kale ereyga ishte waxaa laga heli karaa mid ka mid ah xarfaha shaashada kaaga muuqda, waana xarafka shee. ereyga yemik waxaa laga heli karaa xarfaha inje, sida daraadeed waxaan ku daraynaa te. dhawaaqa soo baxaya waa yemikte. ereyga yemik xarfahan shaashada kaaga muuqda mid ka mid ah ayaa laga heli karaa. ereyga sut waxaa laga heli karaa xarafka u oo ah xarfaha inje, sida daraadeed waxaan ku daraynaa te. dhawaaqa wuxuu noqonayaa sute, waxaana laga wadaa caanaha gudihiisa. ereyga chichek waxaa laga heli karaa xarfaha inje, sida daraadeed waxaan ku daraynaa te. dhawaaqa waxa uu noqonayaa te, waxaana laga wadaa ubaxa gudihiisa ama wuxuu noqon karaa ubaxa korkiisa.